nabadgelyo saaxiibayaal halkan waa muuqaal baahiyaha caalamiga Native Somali TV anigu waxaan ahay Ibrahim Jamuni maalinku waa talaado taariikhda milaadiga waxay ku beegan tahay 8 bisha Maaj sanadka 2022 waxaad ku soo dhawaataan akhbaraadkii ugu dambeeyay inaga soo gaara caalamkii iyo Soomaalida waxa ugu dooroon wararkii ugu dambeeyay khasaare ka dhashay dagaalkii ka dhacay Beledweyne guddiga doorashooyinka Hirshabelle oo hakiyay guddiga xulidda ergada 2 kursi maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo diiwaan geliyay murashaxiinta kuraas ka mid ah golaha shacabka oo doorashadoodu biri ay dhacayso iyo IMF oo mar kale sheegtay inay jirayso dhaqaalaha ay siiso Soomaaliya haddii dib loo dhigo doorashada akhbaraadkaasi iyo kuwa kale oo ay ka mid tahay Raashiya oo hanjabaad u jeedisay Yurub ee ku daawo doontaan warkeena hase ahaatee daawadayaal haddii ay tahay marka kugu horeysa booqashada halkan fadlan subscribe gara barteena YouTube la gara fiidiyowgan oo la wadaag saaxiibadaada page-kana Facebook like iyo follow ku reex hirgelinaya inoo tahay aad u mahadsan tahay ugu horreyn warkeena aynu ku bilownay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo diiwaan geliyay murashaxiinta kuraas ka mid ah golaha shacabka oo biri la qabanayo doorashadeeda guddiga hirgelinta heer dowlad goboleed ee doorashooyinka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta diiwaan geliyay murashaxiinta 6 ka mid ah kuraasta golaha shacabka kuwa oo doorashadoodu maalinta biri ay ka dhacayso magaalada Baydhabo murashaxiinta la diiwaan geliyay ayaa waxaa la sheegay inay buuxiyeen shuruudaha murashaxnimo si ay uga qayb qaataan doorashada iyaga oo badi meesha laga saaray xildhibaanadii hore ugu fadhiyay 6 kursi waxaana murashaxiinta maanta la diiwaan geliyay ay kala yihiin Cabdisalaan Cali Cabdi iyo waliba Cabdi Maxamuud Maxamed oo ku tartamaya kursiga sumadiisu yahay hoob 167 waxaana kursigan hadda ku fadhiya Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen Bandi 2 Maxamed Axmed Nuunow Maxamed oo dhalay xildhibaan hore Madoobe Nuunow Maxamed iyo waliba Cabdinaasir Ibrahim Aadan kuwa oo tartamaya kursiga hoob eber 99 waxaana kursigan hore ugu fadhiyay Deeqa Xuseen Xasan 3 Maxamed Sheekh Cabdullaahi Xiirow oo ah taliyaha qaybta 6aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Cabdinaasir Cali Xasan kuwa oo tartamaya kursiga hoob eber 77 kaas oo hadda ku fadhiyo Isgoowe Deeqo Isaaq 4 Luul Ibrahim Cumar iyo Nasteexo Axmed Nuur Cabdulqaadir Cumar Macalin iyo waliba Cabdulqaadir Aadan Cali ayaa loo diiwaan geliyay inay u tartamaan kursiga hoob 168 oo xilligan ku fadhiyo Xasan Macalin Xuseen oo meesha laga saaray dhanka kale wararkii ugu dambeeyay khasaare ka dhashay dagaalkii maanta ka dhacay Beledweyne dagaal kooban ayaa afaafka hore ee xarunta maamulka gobolka Hiiraan waxa uu maanta ku dhexmaray ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada madaxtooyada Hirshabelle ee ku sugan xerada Lamagalaay iyo ciidamo ka mid ah kuwa ilaalada qaar ka mid ah murashaxiinta kuwaasi oo golaha shacabka u tartamaya kuraasta la Beledweyne dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii afaafka hore ee xerada Lamagalaay ay dhaqaaqyo ciidan ka bilaabeen maleeshiyaad ku labisan tuutaha ciidanka kuwa uu ka careysanay shakhsi gooniye loo xiro kursiga hoob eber 10 oo uu hadda ku fadhiyo Cabdirasaaq Maxamed Jindi warka aynu helnay ayaa sheegaya in dagaalka ay ku dhinteen 2 ruux oo mid ka mid uu yahay shacab halka kan kale uu yahay askari ay ku dhaawacmeen sidoo kale 3 kale oo ka mid ah dhinacyada dagaalamay kuwa uu la geeyay dhaawacyadooda isbitaalada magaalada Beledweyne xaaladda magaalada Beledweyne ayaa maanta aad u kacsanayd waxaana maalmihii la soo dhaafay magaalada Beledweyne laga dareemayay saansaan dagaal kadib markii madaxweynaha Hirshabelle iyo ku-xigeenkiisa isku khilaafeen hanaanka loo marayo doorashada kuraas ka mid ah 11 kursi ee golaha shacabka ee taalla Beledweyne guddiga doorashooyinka Hirshabelle oo hakiyay guddiga xulidda ergada 2 kursi guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Hirshabelle ayaa maanta uu talaadaha hakiyay guddiga xulidda ergada ee la diiwaan geliyay si looga jawaabo cabashadii ka timid qoraal ka soo baxay guddiga ayaa lagu sheegay kadib cabasho ka timaaday odayaasha dhaqanka iyo murashaxiinta kuraasta hoob eber 10 iyo waliba hoob eber 66 loo hakiyay isla markaana murashaxiinta kuraastaasi kor ku xusan iyo waliba ummadda Soomaaliyeed la wadaagi doonaan magacyada guddiga xulidda ergada rasmiga ah marka la xalliyo tabashada guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Hirshabelle ayaa shalay shaaciyay magacyada odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka ee soo xulaya ergada balse ciidamo iyo maleeshiyaad ku hubaysan isla markaana ku heebi xildhibaanada ku fadhiya kuraasta hoob eber 10 ayaa xalay hubkooda la soo baxay iyaga oo sheegay inay ka soo horjeedaan in shakhsi gooniye loo xiro kursigaasi 2 kursi ee guddiga doorashooyinka Hirshabelle ay hakiyeen guddiga xulidda ergada oo ay hore u shaaciyeen ayaa waxa ku kala fadhiya hoob eber 10 Cabdirasaaq Maxamed Jindi iyo waliba hoob eber 66 oo ku fadhiyo Cumar Maxamed Waasuge dhinaca kale IMF mar kale sheegtay in ay joojinayso dhaqaalaha ay siiso Soomaaliya haddii dib loo dhigo doorashada
hay-adda lacagta adduunka ee magaceedu loo soo gaabiyo IMF ayaa dib u cusboonaysiisay digniinteeda ku aadan in dhaqaalaha la siiyo Soomaaliya la jari karo haddii ay dowladda sii wado dib u dhigista doorashada dalka Soomaaliya ee qalalaasyaha badan oo ka jiro. Doorashada ayaa dib u dhac ku yimid in ka badan hal sano, waxaana dowladda 26 bishii Febraayo ay mar kale kordhisay waqtiyada codaynta ee aqalka hoose ee baarlamaanka. Barnaamijka IMF ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa in dib u eegis lagu sameeyo bartamaha bisha May, balse waxaa laga yaabaa in maamulka cusub uusan imaan Soomaaliya waqtigii loogu talagalay in lagu taageero isbeddelka la qorsheeyey. IMF ayaa sheegtay in 4 sano ee uu xilka hayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqtigiisana uu ku ekaa February ee sanadii hore, balse doorashadiisa loo qorsheeyey ay dib u dhac ku timaaday markii uu isku dayay inuu waqtiga kordhiyo. Deeq-bixiyaasha caalamka ee fadhigoodu uu yahay Washington DC bishii Maaj 2020 ayaa ku dhawaaqeen in Soomaaliya laga cafiyo deymaha iyagoo la raacayo hindi sharciyeedka dalalka deymaha leh oo ka dhimi doona culayska deynta dalka oo gaaraysa 557 milyan halka uu ka ahaa 5.2 bilyan oo dollarka Mareykanka markuu uu dhammaystiro dib u habeynta. dhinaca kale, Al-shabaab oo weerar khasaare geystay ka fuliyay deegaano hoostaga magaalada Wajeer. xubno ka tirsan Al-shabaab ayaa waxa ay weerar ka geystay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac ka geysteen deegaan hoostaga magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. weerarka ayaa waxa uu ka dhacay xero ciidan oo ay leeyihiin ciidamada Kenya, isla markaana ku taala deegaanka Konton oo u dhow tuulada Gorof Xaraar oo hoostagta magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari. waxaana la sheegay in weerarkaasi lagu dilay askar Kenyaan ah, kuwa kalena lagu dhaawacay. dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in weerarkan uu dhacay xalay xilli dambe, isla markaana ay maqlayeen dhawaaqa hubka culculus oo ay isweydaarsanayeen labada dhinac ee dagaalamayay, balse uusan jirin khasaare dadka rayidka ah soo gaaray. Al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi, waxayna sidoo kale sheegeen in deegaanka Konton ay ku dileen sarkaal ka tirsan ciidamada Kenya oo howlgal halkaa ka waday. saraakiisha ciidamada Kenya ee magaalada Wajeer ayaan weli ka hadal weerarkaasi. waxa uu kusoo beegmayaa xilli dhowr jeer oo hore ay Al-shabaab sidan oo kale ay weerar kaga geysteen deegaano hoostaga magaalada Garissa iyo Wajeer ee dalka Kenya. gunti iyo gunaanadkii Raashiya oo hanjabaad cusub u jeediyay dalalka Yurub. dowladda Raashiya ayaa ka digaysa in uu xiri doono dhuumaha gaaska ee ugu waaweyn Jarmalka haddii reer galbeedku ay mamnuucaan shidaalka Raashiya. Alexander Novak oo ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka Raashiya ayaa sheegay in tallaabadan oo kale ay u horseedi doonto musiibo xun oo ku timaada saanada caalamka, waxayna sababi doontaa in qiimaha shidaalka uu labanlaabmo oo uu gaaro ilaa 300 oo fuustadiiba. Jarmalka iyo Netherland ayaa diiday qorshaha Mareykanka uu ku doonayo in uu mamnuuco shidaalka Raashiya iyo weliba xudufadiisa si ay uga ciqaabto duulaanka uu ku qaaday dalka Ukraine ee dariska la ah. saaxiibada qiimiga badan guud ahaan waa inaga intaa warkii aad kala socoteen muuqaal baahiyaha caalamiga Native Somali TV. warka maanta waxaa aqrinaya anigoo Jamuni tan iyo warkaa kiisa xiga noolu kulanta nabadgelyo.